هاي ودنا إلهي ورهي شاربها لسكتوا والله أول waxaan ka soo gali jiray Facebook-gayga qaaska ah laakiin cabasho badan oo iga imaada saaxiibada qaaska ah ayaa igu yiri oo maadaama page-ka ay ku xiran yihiin 100,000 oo qofood aniga ciwaankaaga qaaska ma naqaan booso de heerku way qabtaa anigana ahad moodaa page-kan inuu iska shiraya hoogaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيجينا ويجوجا. كورم كدوب بحسمه أفكوا فرتاني. وكلا بالميا جعل كيو بكيو كلا جري بكيسو وديكو كمالو وكلا بالميا أنا وأدين كعيد الله بالما وأوه أنا عيوان كدين لقولي أفر بقولة كورم كتاعو هو الشيء ده واو تاني أنت كلامني شيخ نور دي جيس كده جس عاود I'm so happy آد بقى أفرح سنة هاي marka faraxsanahay war nuxurkiis iga qaata marka xanaaqsanahay daran haysan kula ani wadii fanaanin wax lagu taray hebel wax ka keenin lahay maraan ku soo gal lahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحروا وحيابا iga yaabiyay wala horta yarka waa shiday yahay wana fanaan fiican hada لما يهورت الصوت هذا دمانتين سيدات ودنتهين رق يدمرنا وحن إذا لا هاي شرف يعز يد مدنتهين أنت حد توس يداونا يسود داس يا أصحابك لا يكجران أذنك واجب كينا وإن أد حق الشر جريسان أنا أقول واجب كي وإن حق كهالله وركو اسم صاحنا وحروا إن عوضة وحير كإرادو نكل سعيد دني وحروا إن وحير كإرادو شباب أو فيلمان أن وليجي أركب لصو بحي أو عجيب وحروا إن وحير كإرادو حسن علي غير رئيس الوزراء هنا يباشا أن كتل الشيء أبقال أو اسكت دقن هي اسكت دقيهين حق درة ما في إنه مركب يدنا وان كهل دونا داس وما سنتهاي دتك جارسية إن إنتان دعوتها كجرتا هذه صاحبة كلا عن جعلها هذا ندي جعلها ريلي أنا جعلها مركان حق ورمايو أما أن برنامج إذي هايو أنا ودب عن حمر لما جوجو عندنا ميديه أود وملاينا استاجسو أنت شعب كصوماليات مسلمين صدق سنة ظلمنا كجولة سنيان أما أجريونا يا أما والو جولة سنيا وركي جو عادي هاي مدحضونا أما أديركي هالنقطة أما إدلي هالنقطة أما صومالي هيلا هذا هدو صحيانا وتاجيريا أو نجرا قصين ما يوا أديركا هدو قلدي أنا وكسر هرج سنة وأديركا نعس باتاي وحاوس هرج ده أنا عندك دقيقة سنة ما يو هذا دب ملعسنا وقتي حصل الشيخ محمود وانينكي وحنا كفتن كإسبورتس كأفر سنة كجراعة
anigu qof ma caayo laakiin dhaliishiisa si sarbeeba u sheegi jiray hadda se kaftan sports way ka tagto hadda se life waa arinto haddana waxaan idinkugu bishaareynaya horta in aan kaftanka sportska oo aan soo celin doono qof baa ii cabanaya dabcan wallahi ilaa daawadeeda intaas ku baxday qof xanuunsan baan ahay walaal hadda life baan ku jiraa iga raali ahaw mar baan dadka usoo gudbin doonaa xogtaada marka waxaan rabaa inaan horta ku hormaro Saciid Deni ninka la yiraahdo madaxweynaha maamulka ama dowlad goboleedka Puntland anigu nin kulay Puntlander amihi nin horta Deni nacabna miihi oo wari iga tagi maayo nin mucaaradsanna miihi wax iga qosay Denina ma jiraan aniguna halka ma dago dadkiisa oo madaxda u yahay waxa uu ku sameynaya raba laba eray inaan idinkaga sheego kuma fogaanay horta ninkan dadka markaan wareystay waxaan waayay qof dhahayo shakhsiyan waa nin xun Sheekh Aadanow warkaaga waa helay dadkan waa u gudbin doonaa dhibaatada ku haysata dadka waa la wadaagi doonaa laakiin hadda live baa ku jira qoraaladaadana waa arkaa marka hadhow baa ku soo wacaya walaal adoo maadsan horta Deni inta qof aan la hadlay waa ceebka saliid nin xun ma aha nin doqonana ma aha waa nin kulley geesi ah oo haliyay ah waa nin gacan furan intaan dadka qofka been lagama sheego waa nin inta qofood u kala dhalatay beelaha warsageli dhulbahante majeerteen qabiilada lafaha kala u kala baxaan oo table iyo kasaba markaa wacay igu yiraahdeen ninka waa nin geesiya laakiin hal cilad buu leeyahay ciladaasna uma saamixayso qofka inuu hogaamiye noqdo qofku ma wada xumaan karo qofka Saciid Deni khayr Allah siiyo wuxuu gacanta u galay koox la dhaho Aranjan iska barta magacaan horto iska barta magacaan waxa la Aranjan waxaana ku jira ninka la yiraahdo ina shide iyo ninka la yiraahdo Abgaalo ama Abgaal oo taqaanaan wasiir laga dhigay iyo Faroole ayaa u madax ah iyagaana ninkan Saciid Deni farta u muuqdo waana markii ugu horeysay koox ay la wareegto Puntland koox baa oo gacanta u galay koox baa maamusha koox baa u tilmaamta kolley waad aragteen dhulbahantana sida ugu qadeen waad aragteen ortable sida ugu qadeen leelkasa ha sheegin warsangile ha sheegin anigu waxaan u baaqayaa xukuumaddiisa ka fiirsasho ma lahayn xukuumad aqoon lagu dhisa uma muuqato xukuumad nin aqli leh oo siyaasad si fiican u garanay uu soo dhisan uma muuqato maadaama intaas ay tahay ay kala fogeynaysa shacabka walaalaha ee reer Puntland inay wax qaldiyihiinna waxa ku sheegay inta xukuumadan uu ku darsaday waana madaxweynihii ugu horeeyay abid Puntland ee waqti loogu daro waranagu hawiyaan fahamsanahay in xukuumadda Puntland golaha wasiirada aad soo dhistay ay wax ka qaldiyihiin oo saami qaybsiga beelaha aan hadli karin sadkoodii la cunay isaguna ma cunine yaanba la eedin Saciid Deni kooxda Aranjan oo Faroole horboodii ina shide ayaa maamusha meeshan waxayna uga daleeyeen ama uga golleeyeen arrimo ganacsi oo gaar ah waxaan daba galo waa anigu danahooda ganacsi wasiirka maaliyadda ninay u dhiibteen oo ganacsi dabcan oo ganacsata ahaa aqoon oo u leeyahay ma jirto marka Saciid Deni waxaan leeyahay xukuumaddaada walaalow beelaha meesha degan madaxweyne u tahay isku shaandhe dib ugu laabo taas waa walaalkay Saciid Deni ayaa oran lahaa Saciid 5 sano ayaa Puntland xukumaysa taariikh baa ka tagaysay Faroole iyo ina shide meel ku geemayeen Abgaale walaalow dadku waxay kugu xamanayaan inaad tahay nin madax laga haysto oo halka uu ku joogo ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin oo kale ee halka ay kugu haystaan sida farmaajo Fahad Yaasiin uu haysto ayaa adna lagu xantaa fulay xantiisa ma mooge in kooxda Aranjan ay madaxa ka haystaan taasna waa Saciid Deni iyo inaan u sheego dadka deegaanka in xaq daradii laga galay la wada ogsoon yahay oo aysan iga ku koobneen waxaan rabaa inaan laba arin ka iraahdo Xasan Cali Kheyre iyo beesha Abgaal oo uu dagaal culus ku soo qaaday warkaan meel ku qorta Soomaaliyeed Xasan Cali Kheyre wuxuu bilaabay in uu beesha Abgaal isugu waco xasa ceeb ah kulankii uu isugu wacay wasiirka amniga Islow ayaa halkaas joogay oo beesha Oobakar u dhashay oo harti Abgaal ah hadaa taqaanaan wasiirka amniga waxa uu Kheyre ku wargeliyay
deegaan kan horta waa xamar horta Soomaaliya waxaan rabnaa inaan run isku sheegno anigu markaan leeyahay abgaal waa lagu xadgudbay ama abgaal sadkee lahaayeen ma helin ama dagaal baa lagu soo qaaday macnaheedu inaa qabiilista maaha dawladda waxay ku dhisan tahay 4.5 waxaan xaq u leeyahay marka maadaama aad igu tirinaysaa in aan nin hawiye ah oo hiraab ah oo abgaal ah uma sii dadagayo hoose xaqa hawiye leeyahay inaan u hadlo xaqa hiraab leeyahay inaan ka hadlo حق أبقى لي إن أنك هذا إلا دولة دي أكون لسنقاب 4.5 تاسي إيجمر ريح صو إمانه الممسين يصو حق الصومالي إن أهلنا صوماليان أهي ما دام 4.5 حقوق يبسننا دولة دي أقول 4.5 وواحد كل سنة وين أنك هذا مرك حق بيش هذا حقيقي وفكرين هنا يجوا حكومين إن قبيل يسته حتى ما أنت وزير نقرأ أبقى لا نقرأ أنا أقول ما بتلايو إساق ما بتلايو مجرتين ما بتلايو هبر قدر ما بتلايو مريحان ما بتلايو حوالي مرصدنا بالشيء ما دام مركز أنا أبقى الأهي أو هراب أهي أو هوية وين حقك هالله حصل على غير حتاجي أو لمن أبقى لا أو مدح أو وزيرة أو جسمة هرتو ذو كلها هي كسب بالله الدولة دي علي محمد جدي كلها أو رئيس الوزراء وكأها كحج الدولة دي علي محمد جدي نور عبده الشيخ شريف حسن الشيخ كراستا أبقال كفر يان ويكبديه كراستا كله حتى سوء جوابه أنا صابت أقول بالنادين هرت حسن وأبقال متغانيد أغانا كوغو لابن لكن حسن على غيره وحول بطريقة كتكتا هرتو باشان أبقال وباشا كلية أن ولي قد لقميس هذا كوشيغا ولي قد عدكو ذا أن لقادنين حداد إسلاذا هاي وحان هاي مرصده وإن مرصدها أو هلا وحلا مذا باش أبقى وهش يدنا وكاجة جواب رئيس الوزراء وان هو إن فيديو كان داونس وقت جرب تابع عيال كاجة وصل بكوس ودران أنا وان كوجو تحجلنا يا جد هذا رئيس الوزراء إنما درجة الله كوسية وكوجو تحجلنا يا ورباش أبقى لي كعب ورموقال كان شرقرستو استاجا دد متهدين ماشي كجرنا حدا إلين أبديت جرينا فرماجو إنكستو باشر مريحان وكستفتح الدكتة حدنا وكحشود في عيها غير مركي قبيل لا فيرشو فرماجا رون فرماجو إسكا إلهي ألو سهل واي حالة دي سيدة كلي ألو سهل إسكاتها إسكا مقيا أمو إيه قبيل جعيل كله يكون مقل قفك لو مترا لقلا قفكنا بيان لغا مشيغو قفكنا بيان لغا مشيغو قفك وحوياي والله شيغا فرماجو ما إن سوق يوجرتو أننا أوجهاي إنه السياسة وحبك أقولوا إن لا إسكا يستوفى ياسين لعق أوكي صدق ما ضحك ديتي وإسكما مشو واحد وحنت من حتى إسكا قاتوا وجوني لكن مريحان أنت اللي يقدقوا ده هذا صادق مريحان أيو حلقة كوسفة طبعا مريحان كو حق بيقول لي حلقاتان أما فرماجو ما دحنا نقضوا أما يون نقول وقبيل صومالي السمعة يشرف كل صومال تحديدا of course حق بيقول لي هدي عن فرماجو نقول لي حتى حلال ولا قصف لها لكن غيرها كوسو هري غيره بيش مرصدو أن جعلها احترامنا واسينا يا ده أن جعلنا ويكذا الشيء أيجنا ما هيستا غيران هيستا يصيروا وحوسي ودتك كالأوجدي ورهرت ونقصنا قبل كبنادر بيش أبقى دتكو ذا ودت إسكتجيف وعن سياسة جعلين هذا اللي شيء قال لك هديك عن أبقالك ولا بريء والله أقسم بالله إن النبي دي شيء هدي أبقالك أبقال هدوك ماشي حمر ملس للجوجاي وأنا السبب تفرماجي غير ماله بأبقالك الشريان حول أوق خلان إمام كود أوعان أوجاس كود أوعان بقر كود أوعان أو كالي كنت بصعدان لكن هذا دي شيء أبقال والكونكشن كان اسكا بحر انو فيلا جوجنا محيت سبحان الله وعربا يقرا لي هذا ادو انا وصل لابنا كان اسكا لو سهل ميبي دبقه ان دغنا ما هنت ووقع استعمالاي معها ودبقه ان ايا هوس لسم marka saas igara leh hada falaayadka aan deganahay ayaa hoos ku yaala marka nadwooga guryaha hoos oo dhan uu saameeya waxa idin soo haray qeyra inaan wax yar u sheego iyo beeshiisa
وريا إلهي قال محيطها في الكارنيو الرالي هذا هدو مركا حماده عيوان كي كسو قلا بيش كمركا كسو قلو ندو قواب ساس مركا ورقد كادو واي وناكسي هي رالي هذا بقول كيبو بقول رالي هذا غير وحوا كقاده انا كنت صاي ابراهيم يوسف راح كقاده والله انا اقرني انا wax ka qaado غير انا كنت صاي غير انا wax ka qaado awadan ku tusaa anigu adoo murusada haday ilaad غير wax ka qaado murusada ilaahay dashay anigu murusada adiga ma xigtid waa dad hilibkeyga oo dhiigeyga walaalahay anigu غير oo haysta nimankeedan walaalaheena horto murusada waxa ka maqan waxaan soo joogay Ali Maxamed Geedi oo la caynay waxaan soo joogay Nuur Caddo wax laga sheegay waxaan soo joogay Sheikh Sharif oo la caynay waligay waxaas waxayba sheegayba laan gaabnimaha isku saxina ilaahay baa idinku dhaarshay qeyra la cayn karaa ma ahane Jaafar la caynay hatta mursada 2 iyo 3 nin matasha waa malaayiin socoto mursada meeqa boqoray leeyihiin meeqaan aamina oo mursada oo abgal aamin aniga dadka isku xirna hadda isku xirtaan alifkiina cunaysiin maxaa qaadi kartaa قبيل كذا ما جرو بس قف كذا جرو أنا كل مرصدة وجعله أنت قبيل كو آمن سنة مرصدة نما أنا مركا هذا لان داي مرصدة نعبتاي مرصدة ما حتى نعبكم بالله به نعب قبيل وحلا وحسو جرينا مرصدة أبقى معك دحيح مرصدة أبقى المحيس كويستان ما بحب أنا قد حيات أنا أوجينا أديك أكتين anigu murusada uqdada igala dhaxaysa maxay taa qof waligay intaan maqlaayay abgaal qof abgaal oo murusada wax ka sheegay ma maqle maxay taa murusada markii la hadlo murusada nacabta haddaan nacabna maxaa qaadi kartaan haddaan nacabna hane waxa ma qaadi kartid oo live kaas iska daawo adigu wax aad tari kartid male inaan wajacasha dhahay ayaa ku roon ilaahay qabiil Soomaali ima nicbeysiyo sheekh buu leeyahay aamin buu leeyahay wax garad buu leeyahay culmudiin buu leeyahay laan dheer uu leeyahay nin hadii cadow ay qabsadaan iga soo bixin kara mursada kayla markaas ay leedahay mursada nicabta mursada qeeraan matalo bise anu kale mursada kale go'aan kama wada gaaraaye waxaan rabaa inaan abgaalka la hadlo live ka ii daawanayo hadda oo aan runta idin sheego wallahi waxa idin sheega aamina waa durudaan Yurub isku joogtaan Ameerika isku joogtaan maxaa wadanka ogtiin ninkan qeera leh ee soo istaagsan oo kule ka waran habar gidir sideeda kale ula dirsay qeer iyo farmaajo waa budo goori u tuman arintan waa habeen imaanay maba ka saxdaan habar gidir laakiin anaga si kale inoo la dagaashay waa inaan fahanno habar gidir bahdil oo warkeeda banaankeeda ku hayaan laakiin abgaalka bahdil qarsan ay ku hayaan madaxna u salaaxayaan marka maxay rabaan markii nimankan wax kale ma rabaan waxay ku leeyihiin labadii ra'iisul wasaare iyo labadii madax ee u dambeysay xilalka dhan abgaal qabtay wasaaradda hebel abgaal agaasimo ka madax ka agaasimo hebel waa abgaal inta waa abgaal wasaaradii waa abgaal gobolka waa abgaal wasiiradu waa abgaal inta waa okay fiiri gobolkan banaadir haddii maanta ceelbuur degmada ceelbuur wax la qaybsanayo mursadii la qaybsanayo ma abgaal ku dalka kule hatta hadduu degay uma ogoladeen hadday dhacdo inaad wax u ogolaataan abgaal oo ceelbuur joogane wax yar aad u ogashihiin adigu ma dadkaa ka cilmi badan tihiin mise dadkaa ka xoog badan tihiin mise waa ka siyaasad badan tihiin war heedha gobolkan banaadir dastuurkaaba sheegaya inuu abgaal leeyahaba sababta gobolka banaadir abgaala loo magacaaba soo maaha hadda okay tirada agaasimayaasha iyo tirada madaxda waxaan ugu bataan kuu sheegaa anigu sad bursina qabiilkayga ka qaataan ma ku dhahaayo abgaalku wax idin fasiro abgaala ma jiro hal yaqaanan ma laha waa iska aamusin siyaasad siyaasad iga jiro waana rabtaa inuu ninkaaga madax noqdo waa inaad difaacid dadkaaga ceeb ma aha yaa ceeb lagaaga dhigin waa inaad dadkaada ka hadashid ama hiraab anu kama xishoodo Soomaalnimo inaan u dagaalamo inaan hawiye u dagaalamo inaan hiraab u dagaalamo inaan abgaal u dagaalamo wixii ka hooseeya ma aqaan wixii ka hooseeya waa garan kama sheekayno waxa garan ahirana muhiim ma ah waxa ku soo haray marka example soo qaadinaan Soomaaliya qaladna u fahminaha feere hadda Puntland ma jartaanka wixii dhan way wada qaateen waliba Maxamuud Suleymaan dadku way wada deegaanka iyaga majority ka ah bisoo beete haddaan xamar aan majority ka ahay ma yaa ila tartami karo tira abgaal la eg okay labaad yaa ah habar gidira ah
dadka deegaanka ugu badan xamar waa habargidir iyagu dood ma qabaan murusada wuxuu ku leeyahay waxa la xisaabtama abgaal iyo habargidir xilka hayaan wala qabsana isku tira maana markii aybaha isku tira manihin runta dadka way dicibiin anaga iyo murusada isku tira manihin abgaal iska daa waceesla iyo murusada isla barbar dhigi kara hadaan waceesluhu badneenba sababtoo maxay tahay kasoo bilaaw ilaa jubbooyinka waceesle ari ku raacaya helay xamar iskuul ugu furaya helay deexda ka soco ilaa xaradheer ilaa masagawa ilaa ceeldheer dignaa war wuxuu waceesle qaata xataa qaado laakiin abgaal la safanaa ra'iisul wasaare ahay waa wax meel ku qoran adigu ra'iisul wasaare shaati qatar kula ah weligees inta madax ah ma ku baado murusado intuu abgaal madax ahaa weligiin mani la baado oo dhib mani la geystay oo mani la xumeeyey oo dadnimo mani I know murusada in dad gobay yihiin laakiin qeyr wuxuu ku wadaa wada fashil ah wada qooma ma leh oo hadhow ay ka qoomameen doonaan wada foolxu ma leh oo hadhow u horseedi doonto in la faquuqo haddaba siyaasad ahaan maanta waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego murusada shame on you ma aha waxaan rabaa murusado dad walaala tihiin hawiya tihiin dad nala dhashaa tihiin dad aan ka dambeeyno raashinka aan dhamin hadaysan ayaga bilaabina tihiin xushmeeya walaalihiin abgaal xushmeeya oo walaalihiin habargidir xushmeeya war wuxuu waa dalad aan ku wada jirno ninba maray maqaayada u shidan tahay sharaf kaga tagay cizi muxuu xasan sheekh maanta idinka bixiyay waa baxay muxuu cabdiqaasin idinka bixiyay muxuu cali maxamed geedi idinka bixiyay sharaftooda ku wada nool yihiin haddaad bilowdan laakiin anaga saanay kuraasta si lagu qaatay hadda waaye waxaan meel ku qoran waaye afartan abgaala ee ma aragtay laaluush ka qaata xasan cali qeerre ugaaska oo bil la iska siiyo waa ka qoomameenayna haddaa arti abgaal tihiin iyo haddaa buudan tihiin haddaa wacaysan tihiin dad yow midooba oo nacasnimada iska daayay oo report iyo Facebook siyaasadaaba report in laga wadaaba idinkana report Facebook iskaga wadaan waxa soo haray oo raba maanta Soomaaliya u sheego laga qariyo oo warbaahinta loo ogoleen oo warbaahinta maxalliga aysan waxba ka sheegin nimankan anaga Soomaaliya horta wixii la qariyo qurun baa ku jira heerarka aan ku hadlay qodobada aan cuskadana waa garanayaa iyo waxaan u marayaa anaga nimankan dalka naga soo cararsiiyay shabaab aan ka soo wada orodnay oo aan qurbaha u wada joogno madaxooda oo dalkana wali meelo badan ka haysta waxay marooyaan maanta haddii aad newska akhriseen oo shalay aad akhriseen weligay qof shabaab ka hadlaya ma arkin live ku jiro weligay ma cabsi bay ka tahay war haddaad wadani tahay waxaa rabtaa ka hadli kartaa dalkaaga wixii dhib ku haayo iyo dalkaaga wixii ka socdo xaq baad u leedahay maanta Soomaali waxaan u sheegaa maanta waxay sameeyeen gaari nooca qufulan ah ama qafilan saa u taqaaneen ama xiran ayay bamka nooca dhajiska loo yaqaan kuraasta fiir hadda waa gaari blaze ah oo villa Soomaaliya laga leeyahay believe me villa Soomaaliya laga leeyahay markaas laamiyaraha soobe waa taqaanaa Soomaha oo u dhaxay CID-da iyo number 4 ayay gaari madaxtooyada laga leeyahay hadda ma aha gaariyaashii oo ma aha caadiga ah ee kaarib ma aha waa gaari qufulan waay ama xiran ama qafilan saa u taqaanaa Soomaaliga oo aan xabadaha karin ama bullet proof marka Ingiriis lagu dhaho ayay waxay ku dhajisteen miinada nooca dhajiska gudaheeda eeg shalayna baabuur balees ku leeyahay ayay isla hadana baleesa wado ayay ku dhajiyeen hadana nimankaas la iska dabaalan karaa mise nimankaas la inkiri karaa nimankaas dawlad sidoo qabsax shada sheegay naga dhicin karto ma jirto haday jirtane tan hadda jirto ma aha oo cilaaqaad fiican baaba kala dhaxeey iyaga ninka hadda agaasimo ku xigeenka nisa ah Fahad Yaasiin oo aad taqaanaan dabciga oo shabaabka la sheer garay waxa kamid wajigiisa uu qariyaa ma ogolo codkiisa uu qariyaa ma ogolo taliye ka sareeyna ma ogolo ku xigeenna isaga waaye shaqo fiican ay asii shabaabka dhaxmarto okay madaxweynaha Soomaaliya mas'uuliyadda ummadda ka saaran adduun iyo aqran waa la weydiinayo shabaabka iskama celi kara ma dhahayo war dawladdan nama gaami anaga shabaab iskama celi kara dawladda runta sheegta la raba ilaa adiga miyaa sugaysa adoo shacaba inuu farmaajo ka celiyo baabuurka qof bulud furuufka ciidamada ay bam dhajis ku sameeysanayaan adoo shacaba farmaajo ku difaaci kara adoo shacaba baliis ku difaaci kara baliiski ayaaba baabuurkooda lagu xirooyaa maxaa boolis meeshan joogo ma runta ka hadal nimankan ama hadal aan la furno wada xaajood ama Soomaaliha iska dhiciso ama aan la hadalno aan iska barbarino dawlad iyaga la ugaarsanay dawlad ma ahay hadda beesha caalamkana
waxaan kala yaabay hadda waxay ku leeyihiin Burundi yaa la bixinaa jowhar jooga ayaa la bixinaa Ugandesa la saara hadda ay Burundi amaan haysanin be macar fiiri wadan markii peace keepers la geeyo nabad ilaaliyaal caalami ah markii xasilooni ka dhacda la laabta laakiin xasilooni ma jirta amisoomtii wala weerara Ethiopiaanka waxay ku dhacwa aragteen Baydhabo iyo Booraka inta u dhaxayso iyaga yaa baqaa taagan wax looga baxo waxaan u fahminaa ummadda Soomaaliyeed nahay cabsi laga qabo iyaga that's true why Allah xishona looga baqaa runta laba mid waa qana in ragga la iska dhacasho ama ragga ila leeshiyo maalin kasta dhiig muqdisho daadanaya hal ma aha waxaas war colaad waxa ugu liidada mid halkeeda leeyin halkeeda ma haysan doqonna waxa ugu liito mid aan ka hadlin arintan oo aan dadka dhiig malamiya war dadka kale hadees ka hadlay xataa ceeb male laakiin adiga muqdisho degan hooyada degan tahay walaalaha degan maalin walba dhamaanayaan ragga ku dhameynay la hadal wada xaajood la fur waxay rabaan weydii 4 sano dhameysana kursiga nabad iyo nolol waxay rabaan waa dishin ayaga birno iska laabanay miyaanan aan ilaa idinku dharshay shacabku waxba iska ma celi dadka muqdisho waa dadkii siyaad bar iska bixiyay waa dadkii Ethiopian la diriray waa dadkii American la diriray dadkan waa la sixray ama waa waasheen kulligood oo suntii tsunami ma looga sokay waxba qaldan war waligay xamar fiiri xamar oo waxaan ogaa oo aan xasuustaa saddexda habeenimo nin wada ku qiilayo agtooda hadii la dilo dadka dil la soo saari jiray waliba yaa soo saaray nin jiifta oo iska jiif waqtiga ninka la dilayo ayaa dhihi jiray hebel ma la dilaha hadan keenina ayaa dil saacad baa dilay waxaas la dilay reer mataan baa dilay daawud baa dilay saruur baa dilay dhijir hadda bakaari oo la buuxa bam nin lagu siinaa milyan qof daawanayso sug milyan qof daawanayso markaas ayaa dilay kooxaha hubeysana baxsaday waa kelmad caalami ah waa adiga bari ku xigtid marka oo uu leeyahay kooxaha hubeysana dilay wayna baxsadeen dad saas dhigi jiray ayaa la dilay ayakana ilan 10 sano dilkan la wadaa kooxaha hubeysana dilay dadkii dileen iyo wixii dilay iyo kuwii dhahay kooxaha hubeysana dilay kulligood aqri jiraan ilaahay meel fiican hageeyay haddana meed socdana anaga haddana kooxaha hubeysana la sugay haddana soo ma kooxaha hubeysana shabaab bis ma aha kooxaha hubeysana shabaab bis ma aha madax kasto kooxaha hubeysana leeyihiin warbixintii ugu dambeysay United Nations maxay leedahay dawladda farmaajo waxa u jira rag sirdoon ah cadaan afkiis ka sheegay oo qofkii reeban dilaan gudoomiye war ku soo cil wala dilaa ninkii faajasi war ku soo waxa la yaabaa nin sirdoonka Soomaaliya ku jiro ayaa sir ugu qarsaday laakiin magaciisa kulay ayaan ka reebaya maadaama sirtu uu sheegay dadka Soomaaliya anfacayso waxa rabaa inaan u sheego isaga magaciisa waa ceeb qof waro ii sheegay waliga magaciisana ma adeegsanin sir deegaankiisa iyo qabiilkiisa ma adeegsan waligaan ha ka baqay ina sirteeda sheegay sababta calaamadaha ahlu naarkay kamid tahay qof wuxuu ku sheegay ina isaga magaciisa sheegtay laakiin qofka wuu ii ogolaaday ina xogtan u isiyo sir waayna ima dhiinay laakiin magaciisa ceeb wuxuu dhahay ninka waana sirdoonka Soomaaliga wuxuu leeyahay markaan u imaado Sakariye sirdoonka Soomaaliga ninka haysta waxaan ku iraahdaa sirdoonka Soomaaliga waa ninka haysta farmaajo wuxuu ka dhigay nin shabaab ka soo go'ay oo farmaajo wuxuu sirdoonka Soomaaliya u dhiibay nin shabaab uu ka yimid fiiri inay wada shaqeyn jirto rag badan ogsoonay dadka ogsoonayna waxaan leeyahay haddii aysan wada shaqeyn shabaabka iyo farmaajo ka dhaxaynin meeqa rag oo haliyay la heli karaa oo sirdoonka Soomaaliya laga dhigo hatta mareexan ba Allah ka dhigay oo sharaf leh nin shabaab ka yimid ayuu oo meel isaga jiro waqtiga Xasan Sheekh ayuu wuxuu ka dhigtay sirdoonka dhan ninka haysta فهد ياسين أو باش عالم كتوهم وين إيه كقبلنا تلي كحلين كنا نقبض سوق دو كديكت أدوكنا واحد سوق إيش شباب لا دريرو أدوكو واحد سوق إيش شباب تدك فهد ياسين أو إذا محيت قدر أيها قرب كيس كوات قدرنا محيت هاي وماشي الدالبان أمريكا كشرايا هو هدي الشباب الدولة ده ما أنت إيه ودخل يعني يباش عالم كنا إيه قرر الضوحة أيها الوشر دونها فهد ياسين الضوحة كيمد لينكي مسكو توسع مسكو توسع حسابات الجبرة وحنا لقى سيد لقيت عليك وحيان كان نسا ولي جن مقاشين نسا جوري بارتي نسا حب سوق بطي نسا شباب لدي الرتي ما مقاشين لينكي سفي عم بوشقيا حد وحيمرو ينبا حد وحيمرو ينبا ذاتك سومالي ولا قرية ميدي سومالي نمشيغو مد بحلي نمشيغو مد اوفيشيال انترناشونال نمشيغو niman kan isbartiibada garoomada ciyaaraha xamar cid ku dheeli karta mala qof kaartiin weydiiye igu soo celi been loo waqtada ka ah shabaab isbartiiba kasta xireed oo xamar ku taalo waqtigan farmaajo
هل إسبرتيبا ممكن جرتو هل إسبرتيبا وحي كفرن تاي هروا شباب كانوا كعيارو believe me حمر إسبرتيبا ويلش الصوماليات إيه كعياري كلام كباد مجرتو كل وحير الله أما ورقيق لي بدأتو ياكو أكتال بكارا كتال كاران ملو عياري كرو ويدي قويس كاغا حمر جو ورك بوسكا مرمبا هدو ما يكو لها يسورا هدو بيدي سوا كنا ولي قدام هاي دابن لكي أو عكو سوهري سكريا أي حق نساء كينيسا مركز وحيلين زكريا وحاس أي جرتو أيان مقلني اي وركاس لصعو حدي أرنتا وكور هاي السجا قرشوين كشباب سكريا هذا وكور هاي حدو كور هاي وحلي الله وراديك محاك وقلي وحنا جوجين محاك يا قدر صدق وحنا جوجين كينيسا ورنا قلت كوريا وحوس أوجين وحكوليه كان هي بركات سوق يقرأ وحوس أوجين وشباب كي كقرصدين الشباب كلهم دولت كوجر واحد والبمش شكتان وحياة قار لكن ما دام اللينك كده هي وأوجين وحي اللي أوجي أمريكا وصجا هرقصي قرشاس وحكد جي وحوليه روح أنا قلت لك ليه أسكري بقى شغال القبصة شغله أسمع حاول درس تدو أسكريه محا قرشان ودرس تهدو أسكريه أسجا أنا waxaan la yaabaa nin baa ku soo qoray Abdullahi Yusuf u sacabto meesiyada abgaalta oo Abdullahi Yusuf nin ka qeyr badnaa oo ka fiicnaa oo la sacabto ma jiro abgaal u sacabto mi lahayn ay dadka farmaajo u sacabto waa ooyene dadka Abdullahi Yusuf u sacabto me ayagoo ka shalaynay ma aragteen dadku way kala siyaasad badin taas example awad idin siinaa Abdullahi Yusuf wax إن أبقالو كشلا يستاجرين سمجرت إن لور رياقة ما هني ننجس والله قريان قد كان أقول والله عبد الله يوسف ننجسيو لاندير أهنوايه لكن نكلا كشلا يستاجرين سوا فرماجوه oo aan si Abdullahi Yusuf waa ninka hogaamiyaha kaliya aan wax loo meerin karin way anyway kuma dheeraanay abgaalan la hadla cawada war abgaalo war gabdhay wiilalo tala idin siina walaalkiinaan ahay badankiin waa idin ka weynahay habar gidir taladeedu u taala meel u taala taas wax badan waa la hadla habar gidir abgaala la hadla cawada waa tolkeyga aad baan ugu faraxsanahay inaad tala siiyo war abgaalo farmaajo iyo qeyre هذا اللي يرد أبقى له وحصاب برت ماليزيا هندي باكستان هنغري كتمد كل جود وحلا ليه بح حلبان كاجي هذه قصة صحيح حلبان أبقى له أوقف شقق جين كرنة مكجرو والحلبان ذان الله كقاضا والحلبان ذان هلا من نقدان حلبان ذا هبر قدر هلا من نقدان هبر قدر دجال هلقو هاي لكن ودد فر إلا تن إسهستوى هبر قدر ودد حقه ودد أحسن كرواي لكن أبقالك محو ياب كلية منطقة واسكت جيفان وحبان برانا جامعة ورياه ورجامعة هذا أسوأ برتدي يا كو سينا يحل أو كو تاجن أو حلي بانك كو جيلا يا قوي ما بهيز تدي أذيك يا سي هيستعدنا كور فيسبوك أسكت قال يا سيدي دغن المدين وركع أو قير أو الله بنا بحكو السماية بريتو كاران يجوا دول ما كتلس كاران مثلا عاد دولت كتلسا مسوق بعد أنا واسقنا أنا أذيك واسقنا أبقالو ما بكارا فرماج جوجا مل أو جوجا مالك سانجي أمي سوما لقول أصلاً والبهدادا انتهت هوب كيدا قادتان عدوين اسكت عكرن أبقالو بالعطس بليس مظاهرات نبضات سمايستا أو دادك تصو إنا حقين اللقاتي وريا فيري لما بوسيري أنا لسي الله ده أدو هرت بيسويتس قبيلة كلام لم ينتهي وكوين تهي وكدول وين تهي وكسر ريسا ميس أقول لك هذه واحد لبوسير ما حوالي الله سير لبوسير بس برصد ما سير لبوسير ويا لغوسي حدا لكن سان أكوسي سعودي لغوسي دم ليساتا ولغو أقول يا باور كاجا لكن أنا إسكم أقول باور كاجا فير إيه قبل كبرادر لغوسي وزير أمنية لغوسي مد ورفافين لغوسي I know لما وزير مد أمنية ووزير كوكو سر يضلك أمنية I know لكن كان ورفافين أنا لغوسي الصباح وزير وين معها ورفافين
اوكي انت لو وصلت احترام بالله عز بالله شرف بالله انا wax ku baraay siyaasad ma taqaaniin habar gidir maxaa hal loo sii waay halkoodii ayay hataa iska soo tuuraan adiguna wasiirka amniga leedahay I know wasiirkaas naf mala laakiin habar gidir wasiir ma taqaanba cadka am way goosataa am way ka tagtaa adigu cadna ma haysid afkaas uwaysa war waxa tuur am cun habarta amal tuur banaanka u tuur am iska laq sida qabiilada qaar wixii lagu sii iska laq war inaa wax idin sheego war banaan bax sameeyo ka cabada war ninkan khayr leeyahay wallahi shaqadiina ma wado hatta idin cawada idin sheegaa war believe me marka idin ka hor wareega dareemi doontiin okay way idin kugu hadlaani afayaan abgaal mihi way idin kugu hadlaa ma taqaanaan dantiinan ka shaqeynaa ma qabtaan qof hadlo waa dad iga aftaansa waa qabtaan dad iga aqoon badana qabtiin dad iga haliyeysana qabtiin dad cad aan soo dhici karin aniga soo dhici kara qabtiin dad haliyeeyaa qabtiin dad siyaasadda yaqaana qabtiin laakiin dadkeena makiniin yaa la sii erbad maal la duray saasi u dijiifaan meelaha ana idin hadlaayo ila shaqeeya waxa idin ira sameeya ama aniga waa idinku aqaanaay aamus iska kay dhaha anigu abgaalka kale waxa kaga duwanaa anigu dadkayga inaan difaaco ceeb uma maleeyo abgaal inay madax ii saaran yihiin anu ceeb uma maleeyo waana waxaan wasiir ku heli karo madax ku heli karo ra'iisul wasaare ku heli karo sharaf ku heli karo adduuniya qiraba laakiin dadkayga dad garab taagan oo waxaan dhahay yeelay ma yihiin waay dad yar marka laga reebo gabdhii wiilal isugu jiro dhiig leh horta muuqaalkan abgaalka inay shargarayaan waajib ku yahay hawiyaha kale sunno waay abgaalka faral ku yahay wallahi abgaalka faral ku yahay qeyre iyo ninka fi waxa idinka ilaabay ninka abgaal targetka weyn ku ah oo jaga kasta ka daba galaayo oo meel walba u taagan hadda idin sheegay magaciisa waa ba ilaabay garan lahaada waa gudoomiye ku xigeenka gobolka banaadir dhanka maaliyadda xasan macalin xuseen macalin waxa la yiraahdo ma garan karo waa uu nin mursada ninkaasna shaqaalaha dhan beesha mursado u qortay oo wasaarad qaybtiisa hal qof oo maaliyadda ka shaqeyso oo abgaal iyo habar gidir ama xawaalo ah ma jirto eeg hadda way laba mid idinka karnaa marka waari maayo war ka harama sugnaa oo bari markay xilkan abgaal ama habar gidir mid qabto miyaa saas ula xisaabtanaa nimankan mursade qodob waay 1 point ka labaad nimankan waa ka awood badannahay oo ka tira badannahay warnimayo ma isku soo deynaa awoodaha ma dhahnaa dad walaala leeyahay xushmad baa naga dhaxeyso masaan baa ku soconnaa mise waxba iska bedelnaa labadaas adinka laga rabaa anigu ma aqaano meel waxarihi ee maroodiyaasha leeyihiin nafriiso ay ayagana fariisanayaan waa filmaan ugu cusub waay mareexaan gada ka yimid miya adi wasaarad iyo ku tilmaamay adiga haddii qabyaalad iyo abgaal iyo habar gidiro baxa ee taga garbahaari ee dad aamus dhawakaasa shaka wadaa federaal hal booliis oo gada ah oo hawiya ma jiro hal booliis oo hawiya ah oo ka tali ريميو دبقة هنا سيجور لي ما أنا ند وقعن ما في عنانا أيوة وحين إذا كذا تجا إذا كم ديرانا أيوة anyway إذا كم ديرانا أيوة شاشة ده حتى بدلنا مركا يسوع قبل كنا بهاي ريميو إذا كم ديرانا أيوة رالين هذا رالي هي إيه جيست ورميو الثلاثة دقائق أما أبقى اللقاء أما هبر قدر نقاء أما قبيل كلا نقاء والحق هذا قفها أقولانين قف كلنا حقيسة هدفين believe me حق هذا إنه قف كلا قاتهيالين حق قف إسلامات أو أقرأ الويدين غادنين قف كدول مدن إسكعلي وركاس معيبه نكاس ماليد أقابلسن فيري ninka qeyre maaliyadda u qaabirsan oo qeyre oo keensaday muruusadaha wasaaraddiisa soo baara dad u dira
wasaaradda qaybta maaliyadda wasaaradda maasoori qaybta maaliyadda gobolka banaadir isagaa gacanta ku haysta maaliyadda gobolka banaadir oo maaliyadda gacanta looga qabtay yiriso muxuu yahay aad meel soo taagay waa keerigaas waa yiriso isaas ma ogtiin mursaas ka raaxaysteen ha idil farmaajo telefoonka gidi walaalay waa ku soo qabana adaan kugu soo abjaraa idilay telefoon kaamirada dhinaca u gidi haddii suurtagal tahay idilay ad mareyxaanka naga celiside taqaan jibs anaaba og adiga mis diyaarinaysa always waa iska diyaarsan tahay wallahi gabadhaan idil farmaajo leeyahay wax ka boqorsan weligay Soomaali ku markan wallahi waa dhartay idil farmaajo hadaa maqashid waa gabadha fiiri ma laga helaa murusadow qeyr adoo baab gaala ama habar ayna ama ayaa sabaa qeyr qabiil ku taageera murusado kore hadde murusada waa hawiye koro waa anaguna idil farmaajana walaalkeena dhashay gulimo ku nacday oo maamul la'aan management ku nacday eber ah oo control la'aan ku nacday waa walaal soo idil farmaaj ma dhigarto walaalkee waay mareexan iska badaa walaalkeeda siyaasadda ku nacday adiguna qeyraha ku taageera murusade karalaha weeye tuku yana gabadhaas nasab ee ilaahay ku dhaarshay awada abgaal talansi gabdhahooda iyo wiilashooda talansi waa hadday war maqlaayaan waa haddii ay war maqlaayaan war xamar waa ku dhammaateen war xil ma haysataan war nabad ma haysataan war sharaf ma haysataan war ciis ma haysataan anigu hadda waxaan dejin rabaa hal qorsho ayaan dejin rabaa haddii ilaahay i gaarsiiye cawada hal qorsho iga qoran haddii aan la gaarin heed ma jira mugta haddii la gaaro hadduu ilaahay idmo qorto siyaasiyiin abgaal oo isdiidan ma jiri doonaan hadda idin sheegaa taas horta cawada meel ku qorta siyaasiyiin abgaal oo iska soo horjeedo wixii hadda dhacay oon ka shalayna hadda wixii dhaco kale never ma soo laabanayso taas inay soo laabtaan taasa suginaha anigaa whatsapp ka wada wacaayo isku keenaayo kii diidan leh usoo fiirsay aniga qarannimada abgaal iyo dadnimada abgaal iyo isku xirka abgaal ninkaasaa diidan siyaasi hebel xisbigay rabaan ay furan karaan laakiin markay doorasho imaado waa in ay isgarab qabtaan hawiye oo dhan waa abgaal maaha tan waa inay isgarab qabtaan waay ma hadda farmaajo nagu soo celin rabtaan farmaajo miyaa nagu soo celinaysiin nin la yidhaha salaad cali jeelle oo saaxiiba naadaraan sheekaysanin wuxuu igu yidhi eebooga cadow cali gees oo aniga laf juf ahaan aad ii xiga ayuu yidhi hebel ma siisid codkuu dhahay hebel ma codka siisid marka hebel nin guulaysta ma ahayn markaasuu yidhi anigu farmaajaan siinaa codka hebel reer hebel iyo reer hebel waa tulkiisa reer hebel iyo reer diin anigu iima kala xigaan hadda cadow laakiin inuu xamar imaanin xataa ayuu hadda fifti iska dhaaf wax kale dadku waa inay bartaan yaa wax kuu qaban karo yaa wax kuu qaban karin anigu wallaahi waxaan aaminsanahay reer diini 100 gob dhashaa laga helaa siyaad barra oo adduunka u jeclaa anigu kolley hawii badan waa iska neceb yihiin siyaad barra laakiin anigu goobtaan ku soo barbaaray anigu laba hawi iska dhashay siyaad barra xushmad weyn aa looga hayay waana yaraanteeda waxaan soo bartay weligana u hayaan carruurteedana u hayaan anu siyaad barre qof kasta aragtidiisa xor buu u yahay anu siyaad barre nin gob dhasho ah oo aan Soomaali laga helayn ayuu agteeda ka yahay farmaajane ninkii ugu liitay ee siyaasad manage gareeyay inuu yahay ayaa taariikh ii gashay aniga marka ninkii koolkooliso qeyre ninka la yidhaha ma matali karo murusade kumana gafaaya murusadii ani hadda qeyre dadkiis wax iiga sheegane waa iska cafiya xataa wax uma qabo laakiin qeyre waa nin qabaayista ah waa nin daniista ah murusadani haddii dadka aqoontan uu ka soo xullaa xataa waxbay aaleede kuwa saaxiibtinimada uu kala soo barbaara norway ayuu keensaday meeri dhamaa marka saaxiibayaal tala wacan reer baa